wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in Malaysia ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xalay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Milxo ee gobolka Sanaag bari ee Puntland. Malaysiada ururka ayaa maalinnimadii Khamiista waxay deegaanka ka kaxaysteen 7 qof oo la sheegay inay ahaayeen kuwa ka ganacsada dahabka iyo eheladooda. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso. gudoomiyaha degmada Laasqoray Yuusuf Jaamac Dibad oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in rag ka tirsan ururka Al-Shabaab ay maxaabiis ahaan u kaxaysteen 7 qof oo kamid ah xoogsatada deegaanka Milxa dahabka ka qodota. Sidoo kale gacan ku haynta tuulada Milxo ayaa gudoomiyuhu sheegay in shalay gabalgaabadkii ay la wareegeen ururka Al-Shabaab. ilaasta daba gaaraya ay la jiraan dhinacooda dekada waa saddex casho maqan saddex casho waa xaggooda waxaa soo gaadhay in ciidamo Puntland xaggeeda ka sigayay meesha muuqdeen shalaysto kabacdina ay uga dambeeyeen markay ka baxeen qoladaasi ay soo galeen shabaabku ilaa haddana waa joogaan baa laleeyahay taakanadu marna waa goodaan marna waa baxdaa waa joogaan baa laleeyahay magaca deegaanka Milxa haddii aad sharaxdo waa deegaan sidee ah? deegaanku waa deegaan maxaan ku ilaahay markii hore micno ma ahayn oo hooyooyinka macagaha ku jira buu kamid ahaa oo dhow kilo isxiga laakiin markii waxaa laga qodbatay dahabka waxaa laga qodbatay ummad badan baa qodbaraysay waqtigii hadda dad badan baa jooga waana meel haddee maxaan ku ilaahay de wax laga eedinayaa oo dadka laga xogfadta dadka toogaasu ku noolyahay ilaa imise qof baa ku qiyaasa gudoomiye ilaa qof waa joogta haddaan ka badnayn ama 500 ehelada xoogsatada deegaanka Milxo oo VOA la soo xiriiray ayaa sheegay in dadka ku sugan deegaanka Milxo ay ururka Al-Shabaab ku amreen in aan magaalada cidi ka bixi karin isla markaasna ay adag tahay inay la sameeyaan xiriir dhinaca telefoonka ah. Faadumo Yaasiin Jaamac VOA Boosaaso.